اسمها جود وزارة الديجان كيس بدل كعملة الصومالي محمد عبد الله دعالي أي حنونت وزارة الديجان كيس بدل كعملة مجالات هرجيسة وعكوسه حرية تعبر مدلح مع الموضة كالسعودية كاسي الله قبض شغالها الدولة دوسي عاصمة هرجيسة تعبر كان مدة لحم مع الموضة السعودية يا كوسا بسنة يسكت بريد كي معمول كديجان يولا شهر مركب وارا يو دقن جلينتا سياسة الديجان تعبر كان قبل سوى حقيقة قليه سلاكين كالسعودية hay'adda UNDP agaasimaha waaxda qorsheynta ee dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa agaasimo waxay ka tirsan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo ka qaybgalayaasha tababarkan ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay Cabdi Abakar Yuusuf oo ka mid ah saraakiisha hay'adda UNDP ee Somaliland iyo Yaalna Shucayb oo ah xiriiriyaha mashruucan waxay ka warrameen muddadii tababarkan socday waxyaabaha laga faa'iiday iyagoo kula dardaarmay ka qaybgalayaasha tababarka in ay dabaqaan waxyaabihii ay tababarka ku barteen wuxuu ahaa mashruuc hor u soo socday waxa ka faa'iideystay wasaaradda kala duwan wasaaraddan ay ka mid ahayd imikana waxa la tababarayay dawladda hoose waxa ka qayb galay 15 qof oo muddo 6 cisho ah lagu tababarayay tababaro kala duwan ka ugu horeeya wuxuu ahaa environmental governance and coordination ama isku xidhka deegaanka iyo maamulkiisa in la fahmo in wada shaqaynta hay'adaha dawladda hoose dawladda dhexe iyo dhammaan waxaa kala duwan ee deegaanka quseeyaba wada shaqayntooda ay muhiim tahay iyo in qorshayaasha lagu darsado arrimaha deegaanka aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay inaynu halkan isugu nimaadno oo aynu ku soo xidhno tababaradii halkan ka socday muddo weega tababaradaas oo ahaa tababaro inta badan la xiriira deegaanka iyo sidii kor loogu qaadi lahaa haday noqoto heer siyaasadeed haday noqoto heerka barnaamijyadiisa iyo haday noqoto sidii loogu sameyn lahaa standards ama haddii la ka dhigayo halbeegyo la gaari karo oo lagu dabagalo natiijooyinka deegaanka ka soo baxa deegaankan waxa kor loo qaadi karaa marka wakiilka dawladda dhexe iyo ay isku xidhmaan iyo dawladda hoose Hargeysa markay si fiican u wada shaqeeyaan madaxduna waa taa way fahansan tahay oo waa taa qorshayaasha imika ay wadaan ee tareenadii ay ka shaqeynayaan tareenadaasi wacyigeena kor soo qaadayaan macnu maaha in shahaadada la dhisanayo halkan iska fadhideen aqoon badan baa ka heshan meeshii san qiyaasayo idinkuna aad ogtihiin aqoontaasi kordhiya kor u qaada dunida dadku wuxuu kala horumarsan yahay oo u kala bilicsan yahay oo kala qurux badan yahay sida uu aqoonta u qaato Ducaale Cabdi Wahaab Maxamuud oo ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarkaasi oo ka tirsan shaqaalaha waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose caasimadda Hargeysa oo isagoo halkaasi ka hadlay ayaa ka mahad celiyay tababarkaasi iyo waxyaabihii ay ku barteen muddadii uu socday tababarkiin wuxuu koobaad mashruuciin koobaad wuxuu ahaa maamulka deegaanka marka maamulkii deegaanka waxaanu ka fahnay waxyaabo fara badan oo aan markii hore ka fahansanayn oo in xiriir ka dhaxeeyo dawladda hoose iyo wasaaradda deegaanka oo aanan fahansanayn marka waxaan halkaan nooga baxay in isku xidhka waxani ay isku xidhan yihiin oo dawladda hoose ahaan iyo ka wasaaradda deegaanka macluumaadka kale ay soo hosgeliyaan wasaarado badan oo ka mid tahay wasaaradda xanaanada xoolaha kale Mahdi Ismaaciil Abakar agaasimaha waaxda qorsheynta ee dawladda hoose caasimadda Hargeysa oo isna gabagabada tababarkaasi ka hadlay ayaa sheegay in wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Somaliland iyo hay'adda UNDP uga mahad celinayo qabanqaabada tababarkan waxa uu sheegay in tababarkani ay rajeynayaan inuu iba furu noqon doono wada shaqeyn hor leh oo ay la yeeshaan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Somaliland ka institution ahaan maadaama tababarku in badan soo socday runtii anaga muhiimad weyn bay noo tahay inaan ka mid noqono oo ka faa'iideystayaasha mashruuca waxaan noqono dawladdii hoose ee koobaad ee mashruuca ka faa'iideysata insha Allah waxaan rajeynayaa inaanu mashruucan ama tababarkani aanu noqon kii koobaad iyo kii dambeeyay wasaaradda iyo hay'adda UNDP ba aanu ka wada shaqeyno si gaar ah waxaan uga mahadnaqayaa wasaaradda deegaanka oo soo abaabushay iyo international partnerska sida UNDP ba ha noqoto mashruucan qaybin ka qaatay ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Maxamed Cabdullaahi Ducaale oo tababarkaasi soo xidhay ayaa ka qaybgalayaasha tababarkaasi uga mahad celiyay muddadii ay goobjoogga u ahaayeen ka qaybgalka tababarkaasi isagoo kula dardaarmay in ay dabaqaan wixii halka lagu baray horta marka ugu horeyso waa laga sheekeeyay wixii aad barateen iyo casharadii muhiimka ah marka ugu horeyso horta mahadnaqa ka soo idinka ayaa aan aad iyo aad idinku hambalyeynaya idinkuna mahadnaqay sidii asluubta lahayd runtii xushmada iyo
dareenka ah inaad u dhugnuglaagtaan oo aad dhegaysataan casharadii halkan idinka muuqatay runtii aad iyo aad baan idinku dhirinaya waxaanay ka tarjumaysaa dadaalka maamulkiinu uu wado oo iminka muddo 18 sano ka hor shirarkii aan iman jiray dowladaha hoose waxay soo diri jireen dad aad u waaweyn waan xasuustaa maantana dadka halkan fadhiya waa dhalinyaro dadkaasi waa dadkeenu inoo soo shaqeeyay laakiin waxay ku tusaysaa in qofku intuu xoog yahay ay u baahan tahay shaqada asaasiga ee dowladnimada in laga faa'iideysto saddexdaa cashar iyo casharada qaateen dhammaantood waxay gundhig u noqonayaan inaad shaqadii dowladnimo ee dowlad qaranka u hayseen ay wax ka bedesho ilaalinta deegaanka iyo daryeelkiisa aad baa looga sheekeeyey inagu dad muslimiin aynu nahay marka ugu horeysa rasuulkeeni maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu cadeeyay oo xadiis qudsi ku sheegay in abaalmarin weyn uu helayo qofka daryeela ama deegaanka ilaaliya rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam wax la tusay amalka ummadayda kuwa ugu wanaagsan kuwa ugu xunba waxaan arkay wiil amaasha ugu wanaagsan ummadayda qabato inay kamid tahay qofko wixii dhibaato ama waxyeelo ah dariiqa ka qaada ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland Maxamed Cabdilaahi Ducaale ayaa shahaadooyinka ay mutaysteen waxa uu guddoonsiiyay shaqaalihii ka qayb galay tababarka ay soo qabaqaabisay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland ee lagu soo gabagabeeyay xarunta wasaaradda deegaanka Cabdi Casiis Ciidad Cilmi warbaahinta qaranka Hargeysa.